ajendaha caawa halkaan aan isugu keennay oo isugu imaanay waa laba issue ku saabsan go'aankii shirkii Mahiga oo ka dhacay Nairobi iyo issue kale oo ku saabsan go'aan ka qaadashadii xukuumaddu ay go'aan ka qaadatay go'aankaas shirka. kulankan oo ay ka soo qayb galeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ku nool magaalada London iyadoo qaarkoodna ay ka yimaadeen nawaaxiga London sida Bristol ayaa waxa lagu taageerayay mowqifkii dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya ay ka qaadatay shirkii dhawaan ka dhacay magaalada Nairobi isla markaana cambaarayn ay dusha uga tuureen gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed. waxaan halkan ka cadeynayaa inaan taageersanahay dawladda Soomaaliyeed go'aankii ay ka qaadatay shirbeenaadka oo hogaaminayo Mahiga iyo dabadhilfyadiisu maxaa noo dhiman madaxweynihii Soomaaliyeed oo taagan haddii la yiri haddii uu yimaado iyo hadduusan imaanba shirku waa dhacaya waa ayaan darro weyn waxa meesha ka muuqata marka Soomaaliya waxa madaxweyne ka ah Mahiga dadweynihii madfaca iyo meydka iyo geerida murugada dilooto qaramada midow iyo nacay maamulkoodii baa mintida iyo maanta midigtiina taagane gumaysi maskaxeedkiyo maya dhaha Mahiga. waxaan taageero u muujinayaa dawladda Sheekh Shariif iyo Maxamed Cabdilaahi Farmaajo labadaba taageero buuxdaan u sameynay dawladda ku meel gaarka inaan iraahdo wax aanan filayn inay sameyn karaan inay sameeyeen oo ahaa in ay diideen inay ka qayb galaan shirka Mahiga uu ugu yeeray waxaan kaloo halkan rabo inaan ka iraahdo aan macnaha iraahdo adna mahadsanid madaxweynihii hore ee Soomaaliya Cabdullaahi Yuusuf waxaan rabaa inaan iraahdo Cabdullaahi waad mahadsantahay mowqifka adag ee aad ka istaagtay odanimada leh waxaan garab taaganahay oo hiil iyo hol garab taaganahay dawladda ku meel gaarka aan ku taageeraynaa diidmadii ay diiday inuu u yeeriyo Mahiga waxa uu rabo xanuun ay dareemeen ay caawa isugu yimideen xanuunkaas ayaanu rabnaa caawa inaan gudbino oo cod dheer aan ku gudbino una sheegno ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogto inay diiday in boorso lagu qaato oo nin wuxuu rabo uu ku shubto waxaan ku noolaan karnaa kaliya waxaan ku noolaan karnaa inagoo ballan fur yaa Soomaaliya ku noolaan kartaa Mahiga's maanta Soomaali waa mid qura waxaad noo meerisanaa maanta waa la nacay adiga qaramada midahoobo dhan maanta taga shirkana Muqdisho ka dhacaya halkii mudnayd mudana Sheekh Shariif iyo Farmaajo martida u diigay Mahiga iyo waxa wada waanu diidnay go'aanka xukuumadda Farmaajo iyo Sheekh Shariif ay hogaaminayaan qaadanay xukuumadda go'aankeedaan qaadanay Shariif Xasan Sheekh Aadan ma fadaano kalsoonidii qoomiyadda digili mirifle inay ka naqsati Shariif Xasan Sheekh Aadan baka dawladda iyo choice ama haburido ama iskaashi Shariif wasiiru dawlaha caafimaadka ayaa isna uga baaqay jaaliyadii ka soo qayb gashay shirka in ay aad ugu mahadsan yihiin sidii ay ugu taageereen dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya inta xurta ah ee aaminsan ama ogol midnimada iyo qarannimada iyo madax banaanida ummad Soomaaliyeed waxaanu sheegaynaa caalamka inay noo daayaan madax banaanadeena iyo xorriyadeena inay noo daayaan ay noo dhowraan ayaan sheegaynaa dhanka kalena kooxda Qayladhaan oo inta badan iyana sameeya heesaha kacdoonka shacabka ayaa waxa ay soo saareen hees ay ugu magac dareen Ambassador Mahiga oo ku aadanaa shirkii uu qaban qaabiyay shaqalku maneegayo shaka meesha laga dhigayo macnaheeda maan garani Soomaalida meel ka mid ah iyo shabaha
aad iyo aad ugu faraxsanahay oo u hambalyeynaya dhalinyarada wasiirada ah ee maanta u kacay Soomaaliya ee gaaray go'aanka inay ka soo horjeestaan in ay loogu taliyo ama maamulkeena ama dawladdeena laga maamulo Kenya. si kastaba ha ahaatee jaaliyadda Soomaalida ku nool magaalada London oo ka soo qayb galay shirkan ayaa waxa ay ku tilmaameen in dawladda ku meel gaarka mowqif weyn ay ka qaateen inaysan ka qayb galin shirkan uu soo qaban qaabiyay ergeyga gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya laakiin umuurtani ayaa waxay ku soo beegmaysaa xilli khilaaf weyn uu ka dhaxeeyo labada Shariif waa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya iyo waliba madaxweynaha dalka Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed Ibrahim Umar Baafe wararka Universal London.